Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka Wixii Cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka Wixii Cusub ee Gaacar Media Tube waxaan idinkugu soo gudbin doonaa Japan oo soo saartay mooto duuleysa. Haddaad maqli jirtay mooto dhulka ku socota, hadda waxaa soo kordhay mooto sida diyaaraddii hawada duuleyso. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, inta aanan u guda galin warbixintaas oo faahfaahsan, subscribe, follow, like dhaha channelka iyo page-ka Gaacar Media Tube ee Facebook iyo YouTube-ka aan ku kala leeyahay. Waa mahadsantiin. Aan ku bilowno. Mootadan duuleysa ayaa saacaddii waxay duuli kartaa 100 kilomitir. Mootadan duuleysa waxaa nashqadeeyay oo soo saaray shirkadda Zetourism ee laga leeyahay dalka Japan. Mootadani sida diyuuraddii duulimaad ahaan loo adeegsan karo ayaa waxaa lagu soo waramayaa in 2023 suuqyada caalamka ay soo gali doonto. Mootadani duuleysa ayaa dad badan qalbiyadooda soo jiidatay, taasoo lagu soo bandhig carweed lagu qabtay Detroit ee dalka Mareykanka. Mootadani 40 daqiiqo ayay hawada ku duuli kartaa. Madaxa howlfuliyaha shirkadda Zetourism Japan, Mr. Shuhei Komesto, ayaa sheegay shirkadooda mootooyinka duula ka sokow in ay samayso sida droneska iyo gawaarida duusha. Mootadani duuleysa ayaa qiimaheeda lagu qiyaasay waqti xaadirkan inay tahay $777,000. Howlwadeenka shirkadda Zetourism Seishi ayaa intaa ku daray inay u qorsheysan tahay ama ay rajeynayaan sanadka 2025 in qiimaha ay $55,000 ay noqon doonto qiimaha mootadani duuleysa, taasoo ku shaqeyn doonto korontada. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inooga barnaamijka Wixii Cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgeno.